maanta safar shaqo ugu baxaya dalka Ingiriiska oo aan Ilaahay idinkiisa kula kulmi doono jaaliyadda Soomaalida iyo madax ka tirsan dowladda Ingiriiska taasoo qayb ka ah dadaalka dowladda ee loogu jiro in waxqabadka taabagalka ah ee muddadii 2 sanadood ahaa hirgalay lala wadaago jaaliyadda Soomaalida meel kasta oo ay joogto iyo in aan xoojino xiriirka soo jireenka ah ee dowladda Ingiriiska iyo u dhaxeeyay Soomaaliya muddada dheer ee taariikhiga ah kaasoo ah xiriir aad u wanaagsan xoojintiisa iyo sii adkeyntiisuna mar walba labada dhinac ay xil weyn iska saaraan waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiisa inuu guul ku soo dhammaan doono